maanta ninku wuxuu isugu yeeray qolyaha cadaaladda iyo dad kale iyo markaa wuxuu go'aamiyey in la qabto dhowr iyo 10 qof 8 ka mid ah waaran baa loo jaray oo anaga aan ku jirno cabdicaadil xamow xabiib cabdullaahi gisile iyo xubno kale ninka la yidhaahdo arbanaan degay oo qolyaha iyaga ah iyo xubno kale kuwa dhagax buur ku sugan marka waxay doonayaan in ay sameeyaan wax la yidhaahdo mataqaanaa political crackdown. Siraaji aadan oo ka tirsan siyaasiyiinta dowlad deegaanka Soomaalida falanqeeyana arrimaha Itoobiya ayaa sheegay in magaalada Jigjiga iyo guud ahaan dowlad deegaanka Soomaalida maalmihii u dambeeyay ay ka jireen xabsi wadareed loo geysan hayay dhalinyarada da'da yar ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee dowlad deegaanka Soomaalida. Siraaji ayaa dhanka kala sheegay in dhalinyaro fara badan lagu xidhay gudaha magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida. Sidoo kale wuxuu sheegay in magaalada xaaladeeda ay aad u xun tahay laguna soo daadiyay kumanaan ka tirsan ciidanka liyu booliska dowlad deegaanka Soomaalida iyo ciidanka booliska caadiga. Dhanka kale wuxuu intaasi ku daray in ciidamadani lagu soo daadiyay gudaha magaalada Jigjiga ay wadaan qalalaase iyo argagax gelin ka dhana shacabka dowlad deegaanka Soomaalida. wuxuuna ugu baaqay shacabka deegaanka Soomaalida in arrintaasi si wada jir ah ay uga wada hortagaan ayna iskaga celiyaan kooxdan doonaysa in ay banaysato dhiigooda, cirdigooda, sharaftooda iyo karaamadooda. waxaana ka mid ahaa hadaladiisii sida tan. bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaa jira culays fara badan baa jira iyo handadaado badan. magaalada waxaa la xidhay dhalinyarta da'doodu ay gaadho 18 jir ilaa 20 jir. 400 oo dhalinyaro ayaa ku xidhan waqtigan kula hadlay oo Habaana oo la qabtay maalintii shalay iyo daraad. waxa loo qabanaya dadkaas waxa weeyaan waa cabsi weeyaan, waa dhalinyartan macnaha qaab kale loo adeegsan doonaa ama waxbay ka hadli doonaan. waxaana loogu magac darayaa China group iyo wax lamid ah. waxaa jira dad badan, hooyooyin badan oo magaalada yimid, dhalinyar dhagax buur ka timid oo ama arday ha noqdaan ama siyaabo safar u yimid oo la iska qabtay baa jira. manaariyaga inta la tagay baabuurta meesha laga raaco dhibaatadaasaa jirta. haddadan aan kula hadlayo magaalada culays badan baa jira, ciidan badan baa lagu sii daayay. marka wuxuu go'aamiyey in la qabto dhowr iyo 10 qof 8 ka mid ah waaran baa loo jaray oo anaga aan ku jirno cabdicaadil xamow xabiib cabdullaahi gisile iyo xubno kale ninka la yidhaahdo arbanaan degay oo qolyaha iyaga ah iyo xubno kale kuwa dhagax buur ku sugan. marka waxay doonayaan in ay sameeyaan wax la yidhaahdo mataqaanaa political crackdown, in dad inta la qabto oo mishinka iyo sawaxanku inuu hoos u dhaco. marka taasna ma dhacayso, arrintu meeshay gaadhay. marka hadda Muxiidiin Buuran oo kale gurigiisii waa loo daatay. waxay doonayaan inay qasab ku kaxeeyaan. adigu xabiibna halkaa waxaa loo maleynayay inuu joogo. way soo fadhiyaan ilaa hadda gurigii weli in la qabtay maanu maqal. marka hadda aniga gurigeyga waa la horjoogaa, kii cabdicaadil waa la horjoogaa, kii xamow waa la horjoogaa, kii xabiib waa la horjoogaa, cabdullaahi gisile laftiisa. marka dhammaan intaasoo guri waa la wada hortaagan yahay. magaalada waxa lagu soo daayay qabaalo badan. magaalada waddo walba baaritaan baa ka socda. fiidkii already bandooba laga dhigay. marka wareer baa jira aad u fara badan. cadaaladuna markaa ma istaagayso. shacabku aad buu u kacsan yahay, jawiga magaaladu aad buu u qasan yahay. sidaa darteed waxaa loo baahan yahay in kooxdan gooni goosadka oo afduubay nidaamkii iyo sharcigii iyo qaynuunka, waxay doonayaan nidaamkan isla xisbiga dhexdiisa ah oo sixitaanka loogu talagalay inay u bedelaan, maadaamuu yahay hadal wanaagsan oo sharciya oo qaynuuna lagu taagan yahay, in qaynuunka ay ku hor istaagaan xoog. guud ahaan waxaa ishaya cadaaladii iyo dulmigii, waxaa ishaya sharcigii iyo sharci darradii, waxaa ishaya dad shacabka dantiisa ka hadlaya iyo kuwo shacabka ku istaagaya oo xoolihiisii boobaya. marka waxay doonayaan inay ku hor istaagaan xoog iyo handadaad. boolis badan baa lagu sii daayay magaalada. guri walba oo nin laga shakisan yahay gurigiisa ciidan baa la hordhigay, qabaala yaacaya. waxay doonayaan markaa maadaama sharcigu uu noqday wax afkooda ku jira, in dadka qaar ay yidhaahdaan musuq buu galay, maxay buu galay. waxa isweydiin leh oo dadka Soomaalida aan jeclahay inaan u bandhigo,
keliya waxaad isweydiisaan maalintii axaddii baa la hadlay oo dhibaatada laga hadlay inta ka horreysoo dhanna hoos baa loo hadlayay ka xisbi ahaan anigu gooni baan ahaan waan hadli jirnay marka musuqa goormu galay qofku raggan iminka ay leeyihiin musuq bay galeen shaqaba mayn haynin xagga xisbiga mooyaane xuquuqdooda xisbiga ama golo dhexa hadaan ama guddi fulin ama xubin unbay leeyihiin waa xisbi waxay ka hadlayaan marka musuqa goormay galeen halkana la wada joogay jigjiga habeen iyo maalinba shaqadii waa laga qaaday goorma musuqa galeen qofka ya ma maalinta hadalkoodu la socday soo maaha marka waa inaad garataan dadka noocaas ah ee le musuq baa la galay kan baa la galay musuq lama gelin musuq waxa weeyaan iyaga xaggooda waa hadalka waa inaad iyaga dhaliisho waa inaad tiraahdo musuqa ha la joojiyo ya may tallaabo ka qaadaan may wuxuun sameeyaan marka musuq iyagaa ku jira marka nidaamka noocaas ay doonayaan inay wax ku hor istaagaan dadka cabsi geliyaan in maaragtay dadkan isku xidhan ee wanaagsan ay cabsadaan madaxa hoos loo dhigo marka arrintaas haddii caawa ay ku kacaan xidhxidh iyo dhibaato shacabka dowlad deegaanka soomaalida waxaan u sheegaynaa in arrintaas dareenka shacabka inuu ka adkaan doono dareen shacab lagu muujiyo haddii la damco cadaaladda in la hor istaago oo xoog lagu hor istaago dee kooxdaas inagama xoog badna qaynuunka hadday ilaalin waayeen askarta iyo ciidanka haystaana waa kuweenii waa inay iyagu qaynuunka ilaaliyaan marka waa in lagu hor istaago awood shacab baan qaba anugu waa laga yaabaa caawa inay dad xidhxidhaan dhibaatooyin inay sameeyaan crackdown inay sameeyaan marka waxay ka dhigan tahay cadaaladda haddii crackdownkaas uu qabsoomo oo ay dad xidhxidhaan oo nidaamkani sidaa ku istaago bas cadaaladii waa la legday bay ka dhigan tahay mar kalena waa la legday mar saddexaadna waa la legday cadaaladii baa la legdayna waxay ka dhigan tahay shacabkii waa la legday kow waa la legday laba la legday saddex waa la legday marka mar afraad yaan laydin legdin baan leeyahay moogta anigu taasaan ka digaya marka haddii la xidho raggaas maanta dad ka mid a waxaa loo baahan yahay in shacabku ay ka jawaabaan cadaaladuna markaa ma istaagayso shacabku aad buu u kacsan yahay jawiga magaaladu aad buu u qasan yahay sidaa darteed waxaa loo baahan yahay in qayladhaan dhinac walba in loo diro shacabka soomaalidu inay aad u hadlaan warbaahintu in codka kor loo qaado marka qof kasta oo hadda la xidho waa inuu yahay qof guulaystay in free la yidhaahda maaha qof kasta waa inuu noqdo qof halganka ku suntan sidaa darteed waa in codkiisa kor loo qaado qof kasta oo la xidho ehelkiisa waa in xidhiir lala sameeyo marka guudahaan xaaladda magaaladu waa sidaa hadda anagu meel baan ku sugannahay anagu afara marka mana doonayna inaan ka baxno magaalada guud ahaan halkan baan ka hagaynaa xiriirka iyo telefoonada iyo waxaas halkan baan ka dhex wadaynaa isla halkan baan joogaynaa ilaa inta halkan albaabkana laga soo gelaya insha Allah